nin ayaa wuxuu guursaday gabadhaasna aad ayuu jeclaay gabadhiina maqaarka ayaa xanuun kaga dhacay quruxdeedana waxay bilaabatay inay sii nusqaanto maalin ayaa ninkeeda u baxay safar shaqo balse soo laabashada ayuu wuxuu galay shil gaari wuxuuna ku waayay araggiisa indhaha balse gurkooda uu sii socday maalinta ka dambeysana quruxdeeda way sii lumaysay ninkeeda oo indhoolo ahaana muusan ogeyn wax dhan noloshoodii lamaannimadooda way sii socotay jacaylku u qabo ayuu sii waday iyadana aad ayuu u jecleed maalin ayaa xaaskiisa jaranjarta kasoo siibatay way geeriyootay dhaawac oo madaxa kasoo gaaray awgeeda geerideeda aad ayuu u murugooday waxa uu dhameeyey aaskeedii waxa uuna damcay inuu iskaga tago magaalada nin dhabarkiisa fadhiya ayaa soo jeediyey wuxuuna ku yidhi hadda sidee ku socon kartaa jidka intaasoo sano yani xaaskaaga ku caawin jirta wuxuu ugu jawaabay aniga ma yihi indhoole waan iska dhigaya indhoole maxaa yeelay hadday ogaan lahayd inaan arki karo sidai quruxdeeda isku sii bedelaysay way damqan lahayd in ka badan intay xanuunkeeda damqanaysay sidaas darteed ayaan